maamulka carwada iibisa dharka ragga iyo kabaha ee lagu magacaabo Carwo Labis oo ku taala bartamaha suuqa weyn ee magaalada Burco ayaa macaamiishooda u soo bandhigay agab cusub oo ka kooban dhar iyo kaba tayo leh oo ay ugu tala galeen in dadku ay ku labistaan munaasabada maalinta barakeysan ee Ciid al-Adha kuwaasi oo ay ka keeneen wadamada Turkiga, Imaaraadka iyo China. Maamulka Carwo Labis Cabdiqani Jaamac Xuseen Cabdiqani Bidixo ayaa macaamiisha kala duwan ee ku dhaqan gobolka Togdheer iyo guud ahaanba Somaliland ugu baaqay inay ka faa'iideystaan agabka labiska ee ay soo kordhiyeen iyo qiimo dhimista ay u sameeyeen macaamiisha ku xidhan carwo ganacsiyeedka labis. dadkana waxaan ugu baaqaynaa maanta haddaan nahay Carwo Labis inaanu keenay maryo aan hore loo arag, maryahaas oo ah sida khamiisyada, cumaamadaha iyo African dresska kuwaas oo ugu talagalay dadka waaweyn maadaama ay tahay ciidii dadka waaweyn annagoo markaas ka qayb qaadana baahida dadka. haddaan nahay Carwo Labis waxaan ku naalaa magaalada Burco saldhiga dhexe dhinaciisa galbeed marka bulshooyinka maanta waxaan ugu baaqaynaa inaanu keenay maryo quality leh, maryahaas oo ka keenay sida wadamada Turkiga, China iyo Dubai, maryahaas oo quality leh qiimahooduna uu yahay qiimo aad u dhiirigelinaya. marka waxaan ugu baaqaynaa macaamiisha haddaan nahay gudoomiye Carwo Labis Cabdiqani Jaamac Xuseen Bidixo inaanu idin soo dhaweeyno gacmo furan. shaqaalaha meherda Carwo Labis ka shaqeeya waxa weeye shaqaalaha aad u firfircoon oo dadka raali gelinaya, waayo anagu waxaanu markasta himiladeedu tahay inaanu raali gelino customer-ka noo imanaya si ay nagu keenaan customer-ka la cusub. marka waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inaanu ciidan ay noqoto ciidii aan filaynay. dadkana waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha gobolka inaanu maryo tayo la keenay oo jaban waliba. marka soo dhawaada baan leenahay aad bay soo dhaweynaa gacmo furan baan soo dhaweynaa TV-ga Sahan TV-na aad baan u salaamayna oo maanta soo booqday. Shucayb Xasan Dheere, telefishinka Sahan, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.